عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته قالية ملك استاذ جوكتان ومختار نور وهلكن كالسلامية ستوسد كالسلامية مقالة كوالالمبور عاصمة الدلكة ماليزيا وحماتي لتشوغا صاحبكي محمد حنوش. وين سلام الدمان ما أنت مالين أحد ويا رمضان مالين تلغاد أديات بني سلامي وحلي رمضان وناكسن رمضان وناكسن رمضان كريم كل عام وأنتم بخير ومالين تلغاد بشهر بركسن رمضان ما أنت وحن نحمرنا مقالة كوالالمبور iyo xalqad cusub sheeko gaaban barnaamijkeena ama xubinta ka sheeko gaaban ama xalqad cusub sheeko gaaban marka maanta waxa ka hadlaynaa mowduuc cusub waxaana igala qayb galaya saaxiibkay maxamed xaynoosh mowduuca maanta waxa ka hadlaynaa waa dalxiiska iyo Soomaalida marka ugu horreyn waxaan ka bilaabayaa su'aashaas maxamed dabcan sida ogtahay Soomaalida inta badan waa dalxiistaa hadii joogto hadii ay ku sugan yihiin dalka gudihiisa ama dibadiisa marka fahamka dalxiisku iyo Soomaalida maadaama adiga inta badan aad wadanka ku sugan tahay oo aragtay la kulantay Soomaali badan oo soo dalxiista marka adiga ahaan maxaa adiga fikradaas adiga ka qabtaa wallahi horta hadaan walaabarta bismillaahir rahmaanir rahiim dalxiis sidiisa laga hadlo waxay markuu meel qofka dhaqaaqay ilaa meel kale tagayay meesha kale u tagayay ama wuxuu bedelayaa jawi ama wuxuu bedelayaa dawlad ku yahay dadka ama bi'ada ama meesha ku nool yihiin deegaanka bedelayo meel kale wareegayo wax cusub oo soo arko wax cusub oo soo barto صح dhowr nooc dalxiis waa jira dalxiiska caafimaadka dadka xanuunsanayo kale iyo waxa jira dalxiiska loo seminaarada loo aadiyo xagga waxbarashada waxa jira dalxiiska loo aadiyo oo baashaalka oo adula ku rooyahay qofkeeda kuma ka nasanay shaqada iyo stresska adula ku rooyahay deegaanka ku nool yahay meel ka tagay haddaan ka hadalno Soomaalideena anaga dalxiiska markuu baxayaan runtii waxyaabo badan bay doonayaan inay ka horumariyaan xagga dhanka dalxiiska waayo maadaama uu 3 sano ka shaqeynay dalxiiska gaar ahaan Malaysia 2010 ilaa 2020 waxaan ka shaqeynay hotel caam Malaysia ah marka hadda waxaan ka shaqeynaa sida dalxiiska guud ahaan waxaan ka shaqeeyaa hadii yahay hotel packaging ama booking gareenayo ama tour iyo hadii la yahay tribute dadka u qaadayo ama dadka u tadarayo qayb saddexaad waxay dadka marka uu la talinayo meelaha tag ama meelahaas ka dhaafa ama meelahaas dula ku riday bayni roone ana boqotaan oo khasbantiin sax ma garanaysaa Soomaali badan way imaan dalxiis inta badan markay imaadaan oo laabtaan iga arkaan Snapchat-ka ama Instagram-ka way weydiyaan su'aalaha meelaha anagu ma tagin meelaha hore uma ogeen waxaan ku dhahaa meelahan wax u tagi waay ama meelahan macnaheedu dula ku rooyahay war ugu hel weeday sababtoo waxa weey maad baahan qofka dad dalxiis uu tago inuu wax baaro weey si fiican haduu wax baarayo wax ka bilaabi karo ama qof halka joogo wareysan karo haduu yahay qof family-giisa ama saaxiibkiisa ama internet-ka qof walba internet uu leeyahay internet galaya halkaas information dhamaysan ka heli kara si fiican tan saddexaadna waxa weeye haduu la rooyahay dalxiiska waqtigiisa u yaryahay sax lacagna way ka baxdaa marka anagu waxaan sameeyay wax la dhaho qaabka lacagtan baxaysa oo yareen laha iyo waqtigana looga faa'iideysan lahaa si fiican dad badan baa soo waca hadii la rooyahay oo aanu sameeyay wax la dhaho dalxiis wax la dhaho package ay ka heleen waxaan aan ka dhaxgalay adaa kule waxa weey waxa xusid mudan maxamed xaynoosh shaqadiisa waxa weeye inay ku saabsan tahay arrimaha dalxiiska gaar ahaan magaalada Malaysia ama wadanka Malaysia aan dhahay marka wax allaala wixii ku saabsan hotel packaging iyo adiga dalxiiska Malaysia iyo fududeynteeda waxa weey maxamed xaynoosh ayaa hadda doonaysa kala xiriiraysan insha Allah si ka caawanaya program dhan oo dhameystiran oo sameynaya marka maxamed waa si wada marka waxa jirta haddaan macnaha ka hadlo dadka dalxiiska ka yimid wax kamid adoo kale muddo dheer waa ku dhigay soo bax meeshaas ka soo سبحان الله دبل كهرنا وان ديار قرينا برنامج كين وانا كود ديار قري حتى بعد حصتها مركي ما نسي البورك مركز صباحي مخرب بيهد ما انت كنت برقدي باندقاج وحلو تشوتشي اما داونيا اما وكادينيا اما Soomaalida aawi waxaas hadda ma jirto ninka wuxuu yimi hawl inuu nasto inuu yara baashaalo si fiican hawshaas loo weykiisina ninkii waan ka xigay jasiiradka iyo halkaas hal wiik ku maqneen isagoo de faraxsan oo yaaban quruxda adduunka arkay soo laabtay si fiican maxaa noo dhibnaa marka waa lambuur iyo baashaalkeeda si fiican waa lambuurna meel kasta waan geynay insha Allah waan loo soo gudbinay waxaas oo dhan waa ka daawanaysan YouTube-ka insha Allah
إن مدة كله واحد ويا ضد بإيمانية لابو ويك كل جنيه الحيس كيس لابو ويك نروح قدام مانية أما السوق أما مقاهي marka khaladaadkan maxaa ka mid ah inta badan ay sameeyaan Soomaalida khaladaadka waxa ka mid ah meeshii u soo socdaan ma baarayaan si fiican kow labo meeshii u soo socdaan ma yaqaanin marka in qofka meeshii u soo socdo inuu baaro weeye inuu barto weeye inuu haduu la kuro YouTube ka galo oo baaro oo fiiriyo meel uu qurxoon la tagi karo waa maxaa aniga ii haboon maxaa aanu sameyn karaa maxaa haduu la kuro yahay meesha markan tago lii ogol yahay in lii ogoleen ma garan maxaa qarash iga baxaya wuxuu waraqada waxyaalo xataa waxa muhiim ah dhaqanka wadanka aad tagaysidoo kale ana fahamtid waxa laga yaabaa far ina saa u taagaysan leedahay fadlan aad leedahay inay cay u tahay هاي way dhacdaa hadaan lagu faraha gacanaha soo taagtaagna Soomaa kuwan gacmaha risato dagaal buu tahay marka waxa keenaya mid qaala culture maaragtay kala duwanaanshaha maaragtay dhaqanka iyo dhaqanka ma garata keenaya midda saddexaadna waxa weeye qofku markuu dalxiis soo baxayo horta reason ku imaanayo inuu ogaado si fiican yaa soo raacaya hadda qaar ba jira family bay imaanayo hadii family imaadaan waxyaalaha ku soo marsiyo ciyaaraha ma ciyaari karaan marka waan loo hagaajiyo package gaar ciyaalka iyo maamada iyo aabaha waxyaalaha qurxoon iyo ka faa'iideysan karaan ugu haboon waxa jira qolada kale honeymoon labada nin naageen hadda aroosay dalxiis soo baxay labada lamaane oo kuwaana meelada khatar lama geen karo inta wada xijinay meelaha qurxoon ee daawadaan hormarda ninku ku kacdo wax leeyahay waxaan doonayaa xogaa adventure iyo ma gartay si fiican kaas wala geenaya iyo dhalinyarada laakiin waa kuwa ugu shida meesha si fiican dhalinyarada ugu shida waxooda waa dhamaystiray ma garatay waxa celinaya malaha aad midda kale waxa jirta in dalxiiska dadku waxa kula talinaya markasta intaanay imaan inay baaraan sax example u siinaya Malaysia markii dadkii soo wacaya leeyahay waxaan soo socdaa si fiican ama loo bilood kadib baan soo socdaa waxaan diyaariyaa program waxaan ku dhahaa hotelada degaysaan waa kuwaas kow labo saddex si fiican lacagta oo soo gudbiyaa marka waxaan ku dhahaa lacagtan ha raacine meel ku qoro waxa tagaysa xafiiska socdaalka waa soo qoranaysa lacag waxaad tagaysaa hadlaak waxaad galaysaa hotel booking.com si fiican internetka ka baaraysa marka waxaad eegaysaa baraasada keeba ku shaqo ku wanaagsan aad iyo aad ka soo qaad dad baa jecel meelo ay doonayaan tagaan kuwaas kale talooyin waa ka siin karaa meeshaas ku fiican tahay meeshaas ka dhaafi kuma wanaagsan meesha wadadeeda aad buu dheertahay hal maalin kuma filna laba maalin saddex maalin ku fiican ma garatay sax in waxa jirta kale hadii ku rooyahay dalxiis dad baxay dhafarka joojiya dhafar wax la dhaho waa jirto fiidha Malaysia anu Malaysia hadda doonaysan dalxiis dhafar waan exakt waan dhafar iyo waan dalxiis taas waa khalad ku weyn gala Soomaaliya si fiican dad isoo kacay laba toban كل دور عندنا دحيس أنا حجوالي وقتي وابدعي وقتي وابدعي كل كن وابدعي حرام وحس خسارو كلا يعني قف كونو ديار كلو صلاة صبح سوكعي رتو سوكعي وبهاك أسكت دخل شركة ما فهمت صح إن مدة كلا حيالها marka faa'iidada ay dalxiiska caafimaad ahaan iyo maskaxiyan ahaan maxay tahay marka qofka inuu dalxiiso ama inuu ka tago inuu dhaqaaqo xoogaa horta waxyaalo badan baa jira سؤالشاس كهي أنا وده الدلحيس مي صح ما قلت لكن الدلحيساش وين ويديا سفيا هذا كمله صح هذا دو إيمان شهر كده إيمانتي حاضر أنت والله علي دي وحياله بدن بايجو سكر دي وحكمله دي ودن يجو عصبان ولقي إيمان باني مد كو وحن برتي دقن عصب وحن برتي برشو عصب وحن برتي وحياله معناها ودن كان وحياله هرمر وجاري أنا لفتر كيجان وحي سكر دي أقون برشو ضد أن صومالي أهين بان دحقلي وان وحوجا هذا بان دحمري دور قومي ضد بالله كل مي صح أنت أصلاً وحيتها هاي experience أما خبرت بين نقطتين وحكلو وقاعد وحيلا هذا فربض ودن كانوا هربر جاري وأنا جا صومالي هانا شعلنا هنا كو أركو مرك أنا وحيلا هيقول كلفت أنا الأسوق قد بي صومالي ده ولا بفيدياش عصبي أرك دونان وحاسة كم ده معناه ودن كانوا هرمرك وجاري أنا محنو دينا جارنو مرك أنا أهان دير قلبي إنه قناص مرك أنا لابتو أنا إن حوجا نيد أنا نيد كون أكسن سيدي هورينا كسول لابتو أنا دوتنا شقدي دي هولا هي أمطي إن معناها هكا كسي أم بقاضة أنا نيد ونكسن كتشر مركا إن
نفسيا أهانا وان نستي of course معناها هدي وحيلا أنا كبقي شرينا نسميه ونسميه حماسنا ويقشي وحيلا هذا نسمين شر activity ولقي كم سمينين كل ما فكرين بعد كم ما فكر حتى نسميه كم ما بدنا عايزين ولقي ما بسمين كم بدنا عديد وكبقي شري لكن مركا من هالكان واحد سيد واي نوت محا يديد وحاسة مركا أركب واحد أنا اسكت ضيق صح مركا اسكت ضيقنا الحمد لله إن الله يقولي تريب كدم بهذا إيمان دونه أما ماشي دون تهنقته وحيلا عصب إنا نسكت ضيق أيام حوق صاري إن شاء الله الدون كنا دي وحوي واسكت ضيق هذا واحد اسكت ضيق أنا وحبا برتي هذا كوفي الجروتنا وحبا كبرتي غلك بون ها واحد شرتا الحمد لله يكونوا مختار صح الحيس كا مرتا فعلون بدون ولا صح سومالنا وحكم ما هذا نمان دول بلير نمان دول مرين دائما له دائما ورنتها ها مركا وحوي ومهم وي تاسو كله معنا قفكم مركو سعود كبديو هذا ودك غديسه حتى مركا سفريسد او قبل بدن مركا aadid iyo wadaka dibadiisa marka aadid wax cusub baa kugu kordhaya aqoon baa kugu kordhaysa waxaan noqonaysaa qof khibrad leh qof xikmad leh baa noqonaysaa dadku markuu la hadlayaan wax badan waxa loo arkay waxa Allah qofka hebel waa dalmar صح ها markuu soo waay arag ha way arag way qofkan way arag way hala wareesto boqolkiiba marka waxa soo kale waa wax faa'iido la way حاجه لا تشوفوا وجهدان 300 متر اركا كيلسيتوس يس halka ku soo dhawaada KCC gadaasha اركا